عليكم طبعا كما سيابيسوين كو خطرسان أفريقيا قارد أفريقيا waxaa lagu tilmaamaa meelaha ay ku nool yihiin masadka ugu soo khatarsan dunida kuwaas oo inta badan ah kuwa magacyo kala duwan loogu yeero khatarteedana leh mas kasta yaabeso kasta waxay leedahay cirbad looga hortago qaniyada sumaysan sidaa darteedna waa muhiim in la kala barto magacyadooda iyo waliba midabadooda ay leeyihiin iyo dalalka ay ku nool yihiin waxaan maanta idin soo gudbinayaa halaq marinkooda iyo magacyadooda afka Ingiriisiga iyo waliba xawaaraha ay ku ordaan dhererkooda iyo macluumaadyo kale oo muhiim ah tobanka mas ee ugu khatarsan dunida waxa ugu horeeya maska loo yaqaan African Black Mamba hadaba Black Mamba maskan waxa loogu yaqaanaa Black Mamba Snake waxa laga helaa uu ku nool yahay Afrika gaar ahaan Kenya kaymaheeda maskan dhererkiisa waxa lagu qiyaasaa 4.5 meters xawaaraha socodka maanta uu jaraya waa 20 kilomitir saacadii mid kan labaad waxa lagu magacaabaa maska jilicsan waa mas khatartiisa waxaana la sheegaa qofka uu qaniino inaan la soo rogin waana maska ugu khatarta badan Afrika Egyptian Cobra waa maska saddexaad maskan Cobra oo si wacan looga wada yaqaan dunida wuxuu isna ka mid yahay masaska ugu khatarsan Afrika oo dad badan ayaa siyaabo kala duwan u arkay maskan waxaa laga yaabaa daawadayaasha ama daawadaha in qaarkood kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan kala kulmeen maskan madaxiisu aad buu balaaran yahay waxaana dhererkiisa lagu qiyaasaa 2.4 meters midab gaar ah oo uu leeyahayna ma jiro oo isna uu isbedbedela mana jiro midab gooni ah oo loogu tagi karo lambarka afraad tani waa bees waxay iyaduna ku nooshahay ciida iyadoo isaasta laga mana garto ciida iyadoo si cajiib ah ugu aasta waa mid khatar badan leh oo looga cabsado haddii aad lugaynayso ama aad socoto buur cidla marayso iska ilaali waliba dulciideedka Soomaaliya way buuxdaa dhererkeeduna mitir dhama oo waa 90 cm 5 kani waa maska kubrada oo nooc kale ahna midab u leeyahayna ma jiro dadka badidiisuna way ka cabsi qabaan haddii uu ku qaniino waxaaba macquul noqon karaa in aan dhakhtar lagula gaarin haddii ay suntiisu kugu tagto waa nooc isna isbedbedela dhererkiisa waxa lagu qiyaasaa 1.2 meters ilaa 1.5 meters lambar 6 kani waa kubro kale oo caqli badan oo isaguna khatar leh oo ciyaaraha iyo gaadmadana aad ugu xeel dheer haddaynu soo qaadano wadamada uu ku nool yahay Zimbabwe waqooyiga Zambia iyo koonfurta Mozambique dhererkiisa waxa lagu qiyaasaa 1.2 meters tani waa kubra lambarka 7 oo aan ka yaraankii hore masaskii kale ee dilaaga waxaana la sheegaa in suntiisu haddii ay ku gaadho aanad lagula gaadhi karin dhakhtar waxaana jira dawo laga heli karaa haddii uu ku qaniino goobta ku qaniino uu dhow yahay geed dhirtaas ka gudwaana macquul in ay ku daweyn karto dawadiisa laga helo dawadiisana halkaas ay ku jirtaa baa leeydi lambarka 8 tani waa bees geed oo geed ku nool oo fuushanta badan geedaha waxaana laga helaa dusha sare ee geedaha halkaas oo ay ku qarsato ama ay ku koriso ubadkeeda waana bees jilicsan waxaana dhererkeeda lagu qiyaasaa 2 mitir 9 tani waa beesooyinka mid ka mid ah oo khatarteeduna aad bay u badan tahay haddii ay qof qaniintona qofkaas waxa dhici kara inuu noolaan karin iyo inuu geeriyoodo markaba lambarka 10 kani waa mid ka mid ah masaska khatarta leh waxaana ugu dheereeyaa oo uu orod ku leeyahay xagga dhirta waxaana uu leeyahay sun aad u khatar leh. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.